dadkuna iyagana waxay buuq iyo qaylo iska wadaan wax rasmiya bay ka hadlayaan maanta kaaga halkan loogu timi markii roobku daayay intii abaarahana waan kula soconay wixii aad ka shaqaynaysay maadaama roobkii daayay inaad noo timaadona aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guddoomiye waan ku soo dhawaynaynaa insha allah si khayrna qalbigaaga u sheegaysaa si ummadda ugu shaqaynaysay adiga oo aan xilkaas haddana waxa weeye sida ugu shaqaynaysay ummadda aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaa waana kugu hambalyaynaa waqti adag baa lagu jiraa waxaan doonaa media markiina artiska abwaanada asxaabta inaan gacantaas kala qabsano insha Allah difaaca dalkeena insha Allah ka shaqeeyo wixii ay dhaxleena waxay miyirgeeyo hoos aan hoos wada inta kaliya ee ummaddu maanta ay soo tahay ama qalbigooda ku jira waxay tahay qadiyada guud sidaad adigu ku tahay iyo qadiyada Soomaaliland sidaad ku tihiin heerka ay ku taagan tahay cid kastana hadday sidan noqon lahayd gudoomiye dadku meel buu gaari lahaa insha Allah sidan aad sheegaysaan way dhici doontaa inaynu gacmaha is qabsano meel wada jeesano wixii noo cadowana garanno wixii noo nasteexana garanno insha Allah kelmadina kor u qaad ay aad iyo aad waan kula joognaa waan tan joogtana waan ku imanaynaa insha Allah